kadib caleemasaar aad loo soo agaasimay oo ay ka qayb galeen in ka badan 78 hogaamiye oo isugu jiray madaxweynayaal, ra'iisul wasaareyaal iyo diblomaasiyiin sare. Madaxweyne Erdogan ayaa si rasmi ah u bilowday 5 sano ee ugu dambeysay ee uu hogaaminayo Turkiga. Isla xalayba Erdogan ayaa ku dhawaaqay wasiiradiisa cusub ee la shaqayn doona 5 sano ee soo socota. Marka laga yimaado in dhammaan wasiirada uu Erdogan soo xushay ay yihiin wasiirro cusub, marka laga reebo 2 wasiir, haddana Erdogan ayaa u magacaabay wasiirka arrimaha dibadda taliyihiisii hore ee sirdoonka Hakan Fidan. Hakan oo lagu yaqaano adduunka in uu yahay sanduuqa madow ee Turkiga ayaa 13 sano ee u dambeeyay hawshiisu u ahayd aruurinta iyo kaydinta siraha Turkiga, wuxuuna indho iyo dhego u ahaa sirdoonka Turkiga oo uu ka dhigay intii uu joogay mid ka mid ah sirdoonnada ugu adag adduunka. Haddaba muuqaalkeennan maanta ayaynu ku eegi doonaa sooyaalka iyo taariikhda uu leeyahay Hakan Fidan. Hakan Fidan wuxuu ku dhashay sanadkii 1968 magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga. Hakan yaraantiisiiba wuxuu ku biiray kulliyadihii ciidanka isagoo sanadkii 1986 ka qalin jabiyay akadeemiyadda dagaalka dhulka, wuxuuna ku qaatay darajadiisii koowaad ee jaamacadda Maryland ee ku taala dalka Mareykanka, isagoo bartay culuumta siyaasadda iyo maamulka. Wuxuuna xilligaasi Mareykanka u joogay howlgal ay u soo dirsatay xukuumaddii Turkigu. 4 sano uun kadibna wuxuu mar kale qaatay shahaadada masterka, isagoo markan ku qaatay shahaadadan kulliyadda xiriirka caalamiga ah. wuxuuna ka qaatay jaamacadda Bilkent ee ku taala magaaladii uu ku dhashay ee Ankara. sanadkii 2006 wuxuu qaatay shahaadada ugu sareysa waxbarashada jaamacadeed ee PhD-ga, isagoo ka qaatay isla jaamacadda Bilkent. shahaadooyinkan ayaa ka soo saari doona ninkan mid xeeldheeri u yeesha maareynta iyo maamulidda hay'adihii ugu awoodda badnaa Turkiga, muddo yarna isku soo jeediya indhaha dadweynaha. Hakan Fidan ayaa ku dhex milmay xilli horeba ciidamadii qalabka siday ee Turkiga, isagoo ka shaqayn jiray hagaajinta kombiyuutarada ay adeegsadaan ciidamada qalabka sida. waxa muddo hadba shaqo loo dilacsiiyo, wuxuu go'aansaday ugu dambeyn inuu isaga baxo shaqadii ciidamada, isagoo isaga tegay sanadkii 2001 kadib 15 sano oo uu ka mid ahaa ciidamada qalabka sida ee dalka Turkiga. Hakan ayaa u jihaystay markii uu ka tegay ciidanka shaqooyinka diblomaasiyadeed, isagoo la taliye siyaasadeed u noqday safaaradda Australia ay ku leedahay dalka Turkiga. wuxuuna u shaqaynayay safaaraddan 2 sano. isla sanadkan waxaa la wareegay hoggaanka Turkiga rag ku cusbaa saaxadda siyaasadda. hogaamiyayaashan ayaa kala ahaa Cabdullaahi Gül, Rajab Tayyip Erdogan iyo saaxiibadoodii kula jiray xisbiga AK Party. raggan la wareegay hoggaanka Turkiga ayaa markii ay qabsadeen xukunka waxaa soo baxday xan oranaysa inay ku riyoonayaan soo celinta haybaddii Turkigu lahaan jiray xilliyadii Cismaaniyiinta. riyadan oo uu waaqac u bedelay hindisihii siyaasadda dibadda Turkiyada cusub ee Ahmed Daawud Oglo ayuu nasiib u helay Hakan Fidan inuu la taliye siyaasadeed u noqdo. Ahmed Daawud Oglo oo ahaa wasiirkii arrimaha dibadda wuxuu muddo yar ka shaqeeyay shaqadan. waxaa dhacday in Erdogan uu ka dhex arkay Hakan Fidan himilo iyo yididiilo ka dhigtay mid u magacaaba hay'adda wada shaqaynta iyo isku duwidda Turkiga ee loo yaqaano TİKA. hay'adan ayaa ah hay'adda u qaabilsan Turkiga wada shaqaynta dalalka adduunka, waxayna tahay hawsheedu inay u suuq geyso Turkiga adduunka intiisa kale, dhaqaale ahaan iyo dhaqan ahaanba. waxaana la aasaasay sanadkii 1992 kadib markii uu burburay Midoogii Sofiyeet. Hakan wuxuu awood u yeeshay inuu ka bedelo hay'adda TİKA mid ku eg dalalka Aasiya oo keliya, isagoo gaarsiiyey dalalka Carbeed iyo qaaradda Afrikaba. muddo yar kadib waxaa mar kale loo dilacsiiyey Hakan jago ka weyntii hore. markanna waxaa laga dhigay taliyaha hay'adda sirdoonka Turkiga oo ahayd xilligaasi hay'ad aan awood saa u weyn lahayn, ahaydna magacuyaal. wuxuu awood u yeeshay Hakan inuu isbeddelo ka curiyo hay'adda sirdoonka Turkiga, wuxuuna ku qanciyey Erdogan inuu isugu keeno taliska ciidamada qalabka sida, booliiska iyo sirdoonka dibadda, dhammaantood hal talis iyo maamul oo ah hay'adda sirdoonka. waana fikradda awood u siisay inuu Hakan Fidan maamulo dhammaan hay'adihii ciidan ee ugu awoodda badnaa Turkiga. waxaana ugu weynaa isbeddeladii uu ka sameeyey gudaha Turkiga, ka sifayntii uu ka sifeeyey ururka Fethullah Gülen hay'adaha dowladda. maxaa yeelay ururkan oo loo tiriyo inuu ka dambeeyey afgembigii dhicisoobay ee ka dhacay Turkiga sanadkii 2016 wuxuu awood u yeeshay inuu ku dhex milmo hay'adihii dowladda iyada oo aan la dareemin, waxayna dowlad ka hoos dhiseen dowladdii jirtay xilligaasi ee uu hogaaminayay madaxweyne Erdogan. waxay qabsadeen iskooladii, booliskii, idaacadihii iyo TV-yadii ugu muhiimsanaa iyo garsoorkii. meel walba
oo ay awood ku tuhmayeenna waxay geysteen qof ka soo jeeda iyaga, taasoo ka dhigtay kuwo u muuqda inay adag tahay in laga awood roonaado. Laakiin sirdoonkii uu Hakan horkacayay waxay awood u yeesheen soo afjaridooda bilooyin yar uun kadib dhammaadka afgembigan dhicisoobay. Haddii aynu ka nimaanno gudaha Turkiga, sidoo kale Hakan Fidan wuxuu awood u yeeshay inuu ka dhigo sirdoonkii Turkiga mid awood ku yeesha adduunka, gaar ahaan Bariga Dhexe. wuxuuna tartan xooggan la galay sirdoonnadii shisheeye ee ka howlgeli jiray mandiqadda sida sirdoonka Israa'iil ee Mossad, oo ay cadaawad xooggan kala dhexayso Hakan. waxaana dhacday xilliyo badan in saxaafadda Israa'iil ay ku bariso xukuumadda gumaystaha Israa'iil inay qafaashaan oo ay dilaan Hakan, maadaama uu yahay cadowga koowaad ee Israa'iil. dharbaaxooyinkii ugu muhiimsanaa ee uu Hakan u geystay Israa'iil ayaa ahayd markii uu la wadaagay Iiraan 10 basaase ama jaasuus oo ay Yahuuddu ku dhex beereen hay'adaha dawladda ee Iiraan. basaasayaashan ayaa imaan jiray magaalada Istanbul si ay ula kulmaan taliyahooda uguna gudbiyaan dhammaan xogaha ay ka soo aruuriyeen Iiraan. kadibna taliyahaasi ayaa xogtan u qaadi jiray gumaystaha Israa'iil. markii ay ogaadeen Iiraaniyiintu raggan way dileen, taasi oo ka dhigtay gumaystaha Israa'iil mid waaya xubno muhiim u ahaa sirdoonkiisa u joogay Iiraan. Hakan Fidan ayaa door weyn ka ciyaaray fashilinta afgembigii dhicisoobay ee 2016 ka dhacay dalka Turkiga ee lagu doonayay in meesha looga saaro xisbiga AK Party ee uu horjoogaha u yahay Erdogan. 15 bishii toddobaad 2016 waxaa dhacday in ciidamo uu hogaaminayo Maxram Kose, la taliyihii dhinaca qaanuunka ee taliyaha ciidamada Turkiga Hulusi Akar iyo taliyayaal kale ay isku dayeen samaynta afgembi ciidan, waxayna xireen isku socodkii magaalooyinka waaweyn sida Ankara iyo Istanbul. waxayna amreen diyaaradihii qumaatiga u kacayay ee ciidamada inay weeraraan hay'adihii ugu muhiimsanaa dawladda sida dhismaha baarlamaanka iyo dhismihii sirdoonka. waxayna qabsadeen TV-ga dawladda iyagoo tabiyey bayaankoodii ugu horeeyay in maamulka dalku uu gacanta u galay ciidamada lana joojiyey ku dhaqanka dastuurkii dalka. laakiin xaqiiqdu sida ay dadka ku maaweelinayeen way ka duwaneyd. waxaa dhacday in maalin ka hor afgembiga ay soo gaartay Hakan Fidan warbixin sheegaysa in qayb ka mid ah taliyayaasha ciidamada qorsheynayaan afgembi. xilligaasi madaxweyne Erdogan wuxuu ku maqnaa fasaxiisii sanadlaha ahaa, taasoo ka dhigtay Hakan mid isugu yeera ciidamadii qalabka sidey 3 galabnimo ee maalintaasi. waxaynu u jeednaa 15 bishii toddobaad, wuxuuna ku soo rogay amarro dhigaya inay mamnuuc tahay laga bilaabo xilligaasi duulimaadyada ciidan nooc walba oo ay yihiin ilaa amar dambe, iyo sidoo kale in dhammaan gaadiidka ciidamada ee ku sugan saldhigyada ay mamnuuc tahay iyagana in laga soo saaro saldhigyadooda. tallaabooyinkan ayaa ka dhigay raggii damacsanaa afgembiga kuwa dareema in la fashiliyey qorshahoodii oo la ogaaday. waxayna go'aansadeen inay afgembiga ka soo hormariyaan wakhtigiisii maalin. markii hore qorshuhu wuxuu ahaa in ciidamada afgembiga waday ay subaxnimada hore ee 16 bisha toddobaad ay gacanta ku dhigaan dhammaan xarumihii ugu muhiimsanaa dawladda iyada oo aan la dareemin, kadibna ay shaaciyaan subaxnimadaasi in uu xukunku dib gacanta ugu galay ciidanka. laakiin markii ay dareemeen in qorshahoodii uu fashil ku dhow yahay, waxay isla habeenkiiba amreen ciidamadii ka amar qaadanayay inay dhaqaaqaan oo ay fuliyaan qorshihii ay ku ballameen. waxaana dhacday in xubno badan oo ka tirsanaa ciidamadii afgembiga waday aysanba ka warhayn bedelidda qorshaha oo aan waxba lagu soo wargelin. sidoo kale madaxweyne Erdogan wuxuu ogaaday afgembigan markii uu bilowday, oo markii hore Hakan Fidan lama wadaagin madaxweynaha iyo mas'uuliyiintii ugu saraysay dawladda wax xog ah ilaalin uu ilaalinayay sir ahaanshiyaha xogtan. afgembigii wuu dhicisoobay kadib markii uu Erdogan ka soo muuqday shaashadaha isagoo oo ku boorinaya shacabka inay u soo degaan saaxooyinka ilaashadaanna dawladooda. wuxuuna noqday Hakan Fidan afgembiga kadib hogaamiye loo arkay inuu xitaa ka awood badan yahay madaxweyne Erdogan. waxaana soo shacbaxday oraahda oranaysa qofkii raba inuu Erdogan wax u geysto marka hore waa inuu kasii tallaabsadaa Hakan Fidan. isku soo duuduubo daawade, guusha uu dalgaari karo waxaa gundhig u ah in hogaamiye walba la geeyo booska uu ku habboon yahay. waana qaacidada uu Erdogan awood ugu yeeshay 17 sano oo keliya inuu ka soo saaro dalkiisii dal saamayn dhaqaale iyo awoodeed ku dhex leh adduunka. Hakan Fidanna wuxuu ka mid yahay hogaamiyeyaasha uu madaxweyne Erdogan geeyey jagooyinkii ay ku habboonaayeen, kadibna uu u siiyey xorriyad fulinta hawshiisa si madax bannaan.